warna sidaan meel aragteen Soomaalida yaa habaaray waxaan arkay internet ku arkay maalmahan rag waaweyn oo soo shaqo tagay oo soo dhoofay oo dibadaha imaaday misna internetka la dhooban lacagtiyaa nala ka dhacay lacagta internetka ka arwiyay annagoo 2,000 oo qof ah yaa nin u dhiibana markaas nagala gambiyay 2025 baa la marayaa markaas ba ayuuto iyo nin tuuga iyo company la aqoon yaad shilinkaaga u dhiibanaysaa adduunku maanta wuxuu marayaa ninka baadiyaha jooga iyo ninka niyog degan inay isku si u invest garayn karaan anigu 5 sano kahor markaan group think iska daayay lacagta aan invest garay account-da qaar ka mid ah like crypto account oo kale waxa laga yaabaa maanta 220% ka badan inaan faa'iido marayo yaa waxaan ku sameynaa balaan hadda lacagta trade ka badatay ako stocks-ki arkay maray crypto arkay maraysa yaa waxaan ku qabanaa lana waa iska sadaqaysana adiguna wax barta waa diideen wax fahma waa diideen internetka saas u soo dhawaanta u soo caloolo kuusantihiin naag balaayad raadinaysiin yaa war wax barta oo sida lacagtana loo invest garay barta dhowr bilood ha kugu qaadato 2 bilood ha kugu qaadato group thinking iyo wahlida iyo balaayada dhacaysa iska daay wallahi inaan been idin sheegay yaa lacagtan 5 sano kahor crypto long term kan ku invest garay in ka badan 220 aan faa'iidaha maraya haddaan 100 kun geliyay maanta lacagtaas waa lacag ka badan almost $500,000 lacag ku dhow waa fahmaysaa Soomaa adiguna waa la dhacay ina hebel baa yiri ninkaasaan lacag iyo dhiig war waxa iska daayeen waxa la yiraahdo bahalkan get rich quick scams kan ma shaqeeyaan waa inaad strategy leedahay waa inaad barato sida bahalkan financial market u shaqeeyo waxaan soo kacaa 4 iyo bar aroornimo soo kacaa markaasaan financial market ka analyze garaynaya because on meel reer galbeedka fogaan jira suuqa Yurub intaan xiran ka hor aan fiiriyo hameenka intaan sax ka hor suuqa Asia fiirinaya markaas waxaad leedahay waa la dhac war waxaan intentional nolosha baro yaa faa'iidada maanta adduunku gaaray waxa kamid ah inaan qof kasta fursad u leeyahay inuu invest garayn karo war wax bartan haddii ka internet la soo laabto ana la dhac